بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسigani waa darsigii labaad ee kitaabkii ahaa al-ajrumiya waxaanu ku jirnaa baabkii koobaad ee kitaabka baabul kalaami waxaanu soo qaadanay oo aan soo dhahnay shalay baabul kalaami waxaa looga hadlayaa saddex mas'alo masalada koobaad kalaam maxaa la yiraahdaa mas'alada labaad kalaamka meeqa loo qaybiyaa mas'alada saddexaad qaybaha kalaamka uu leeyahay mid kasta oo kamid ah maxaa lagu garanayaa saddexdaas su'aalood waxaan ka soo jawaabnay su'aasha koobaad oo ah kalaam maxaa la yiraahdaa waxaan soo dhahnay kalaam waxaa la yiraahdaa afar shay wax laga helo lafdinimo murakabnimo mufiidnimo iyo wadci maanta waxaan qaadan doonaa insha allahu tacaala su'aashii labaad iyo su'aasha saddexaad qayb ka mid ah ayaan insha allahu tacaala qaadan doonaa su'aasha labaad waxay noqon doontaa kalaamka meeqa u qaybsamaa kalaam meeqa loo qaybiyaa kalaamka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood ayaa loo qaybiyaa isim ficil iyo xaraf baa loo qaybinaya kalaamka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood isim iyo ficil iyo xaraf kalaam oo dhan wuxuu u qaybsamayaa saddexdaa qaybood isim iyo ficil iyo xaraf macno leh saddexdaa qaybood ayaa loo qaybiyaa su-aasha saddexaad waxay noqon doontaa ee baabka looga hadlayo ugu dambeysa baabka qaybaha kalaamka uu leeyahay oo ah isim iyo ficil iyo xaraf mid kasta oo kamid a haddii aan arko maxaan ku garanayaa isim haddii aan arko maxaan ku aqoonsanayaa ficil haddii aan arko maxaan ku garanayaa xaraf haddii aan arko maxaan ku aqoonsanayaa isim waxaa lagu aqoonsadaa afar calaamadood hoos dhig iyo laba shaqal alif iyo laam inay gasho oo al ay gasho iyo xuruufta wax hoos dhigto afartaa ayaa lagu garanayaa isim maxaa lagu garanayaa isim waxaa lagu aqoonsanayaa afar calaamadood afartaa calaamadood mid kamida wixii aad ku aragto isim waaya dheh calaamada koobaad waa alkhafdu waa hoos dhig wax walba ee hoos dhigan ama qur'aan ku dhex arag amba sunnada iyo axaadiista ku dhex arag amba carabiyada kale ku dhex arage wax walba ee hoos dhigan waa isim isim waxaa lagu aqoonsadaa calaamada koobaad hoos dhig calaamada labaad ee isimka lagu aqoonsado waa tanwiin wax walba ee laba shaqlan laba shaqalku wuxuu noqon karaa laba kor dhig wuxuu noqon karaa laba hoos dhig wuxuu noqon karaa laba god wax walba ee laba shaqlan ee qur'aanka ku dhex aragtahay amba sunnada aad ku dhex aragto amba carabiyada kale aad ku dhex aragtahay waxaad tidhahdaa waa isim maxaa yeelay waa laba shaqlan yahay calaamada saddexaad ee isimka lagu aqoonsanayo waa al inay gasho wax walba oo alif laam lagu bilaabo al wax walba oo ay gasho waa isim calaamada ugu dambeysa ee isimka lagu aqoonsado waa xuruufta wax hoos dhigto ee loo yaqaano afka carabiga xuruuful khafdi xuruufta wax hoos dhigto xuruuftana kitaabka ee kuu qorayo waa min ilaa can calaa fi ruba alba alkaafu allaam iyo xuruufu lqasami wahiya alwaaw alba wata xuruufta kitaabka uu kuu qoraayo oo 9 xaraf oo meela iyo 3 xaraf oo xuruufta dhaarta la yiraahdo oo waaw iyo ba iyo ta ah 12 xaraf ayaa waxaa loo yaqaanaa xuruuful khafdi wixii ay galaan xuruuftan way hoos dhigaan tusaale ahaan min wax walba oo min ka dambeeya waa hoos dhigmayaan min allaahi min almasjidi ilaa waa la mid ila allaahi ila almasjidi ila albeyti bacdu waa la mid bismi allaahi arrax u fiirso xuruuftan waxaa loo yaqaanaa xuruuful khafdi wixii ay galaan waxaan dhahaynaa isim waaye xuruuful khafdina kitaabka kugu qoraayo min ilaa can calaa fi ruba alba alkaaf allaam iyo xuruuful qasam xuruufta dhaarta wallaahi bilaahi tallaahi soolama dhaho waawga iyo ba'da iyo ta'da ayaa waxaa loo yaqaanaa xuruuful qasam xuruufta dhaarta loo yaqaanaa wax alla wixii ay galaan waa la hoos dhigaa waxaan maanta qaadanay baabka su-aashiisii labaad iyo tii saddexaad wax ka mida su-aasha labaad ee baabka waxay ahaaday kalaam meeqa loo qaybiyaa
waxaan dhahnay kalaam waxaa loo qaybiyaa saddex isim ficil xaraf baa loo qaybiyaya su-aal saddexaad ee baabka waxay ahaaday qaybaha kalaamka uu leeyahay saddexda ah mid kasta oo kamid a maxaan ku garanayaa isim ayaa maanta qaadanay isim waxaan ku aqoonsanaynaa afar calaamadood hoos dhig laba shaqal oo tanwiin ah al inay gasho xuruufta wax hoos dhigto xuruufta wax hoos dhigtana kitaabka kuu qoraayo halkaa kasoo xifdi insha allahu tacaala wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين